waxaa jirta maqaasid waaweyn oo diintuba u soo degtay ilaahiyo kelinimadiisa in lagu baro makhluuqaadka iyo dacfigooda in lagu baro dunida iyo liidashadeeda in lagu baro aakhiro iyo weynideeda in lagu baro jannada iyo naarta iyo faraqa u dhaxeeya in lagu baro qiyaamaha iyo kontonka sannadood la taagan yahay mawaaqiftiisa kala gedisan inaad ogaatid nolosha iyo dhadhanka ay leedahay in lagu baro xuska rabbi iyo weynidiisa in lagu baro xumaha iyo ka dheeraantiisa in lagu baro samaha iyo qalbigu siduu ugu xasilo in lagu baro idan كما ورمينا استنباطات الفقهية الدقيقة كما ورمينا هذه للعلماء لكن وحن كورمينا مسألة الاتعاذ والاعتبار والاستبصار إن القرآن كواخرضه إن كوان توليد ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سوقت ما إلهي وحط المامية النتيجة التدبر كاثين كانتي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين day dhageystaan baa rabbi yidhi wixii nebiga lagu soo dejiyey waxaad arkaysaa indhahooda ilmadu dareeraysa xaqa ay garteen daraaddeed iyagoo le rabbo waa ku rumaynay ee nagu dar oo nagu qor inta shaahidiinta ah allahu nazala axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihah مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رب قرآنك وحين قلت المام يا مركه انت فهمت دقيقه sidoo noqdo hadii quraanka aad u fiirsato ku tadabburto macnihiisu ku dhaco natiijadani waa laabud in la gaaro inaad ilmaysaa waa laabud in jirku ku dubaaxiya waa laabud in ilaahay dhikrigiisa qalbigaagu ku xasila waa laabud inaad rabbi ka cabsootaa waa laabud iimaan inuu ku kordho waa qasab rabbi inaad tala saarato kalsooni isaga ku qabto makhluuq oo dhan aad ka tagtaa waa wax وقرآنك وحق عنه وآثار تكرر تبنتا دي بينه وقول نقونه مركز تدبر كوي ماذا